Halo, nimcaanka nimcaanada. Shama boy my brother. Originalka waa koobi maaya. Nimcaanka originalka ah waa ujeedin. Welcome to Minnesota saaxiib. Sida dhammaantiin aan ka wada dhereegsanahay waxa wadanka Mareykanka wali socdaal iyo sidoo kale dalxiis qiimo badan ku sameynaya fanaanka dhalinyarada ee Sharma Boy oo dhawaan halkaas gaaray. Balse Sharma Boy ayaa sameeyay arrin badi aysan sameyn fanaaniinta Soomaaliyeed qaasatan markay tagaan wadan ku cusub ama hore aysan u tagin. Arrintaas ayaa in fanaaniinta qaar aysan sameyn booqasho ama isarag ay la sameeyaan fanaaniinta kale ee ku nool wadanka ay tageen. Laakiinse Sharma Boy ayaa sameeyay arrin farxad gelisay dad badan. Sharma Boy ayaa mid u booqday dhawaan fanaaniinta dalmaryare iyo sidoo kale farxii kabayare oo ku nool wadanka Mareykanka. Fanaankii ugu dambeeyay oo la kulmana waxa uu ahaa fanaanka Nimcaan Hilaac. Dad badan ayaa waxay yiraahdeen Sharma waxa uu ka wanaagsan yahay fanaaniin badan oo aan qiimeyn wadanka ay tagaan fanaaniinta kale ee ku nool xitaa aan booqan saaxiibadooda fanka iskula jiraan. Laakiin Sharma waa nin qalbi nadiif ah, waxa uu booqday fanaaniin badan oo Mareykanka ku nool xitaa wali waxa uu ku sii rajo weyn yahay inuu booqdo fanaaniin kale oo wali uusan la kulmin. Kulanka Sharma Boy uu la qaatay Nimcaan Hilaac ayaa waxa uu ku sifeeyay inuu aad ugu faraxsan yahay la kulanka walaalkiisa iyo sidoo kale inuu waqti la qaato saaxiib ku qaaliya kaasoo ah Nimcaan Hilaac. boqorkii codka waan arkay waxa ii dhimay magaalada boqorkii kale ma aan arag Suldaan boqorka codka asna aan listenkayga aan asna aaminsanahay waxaan rajeynayaa asaga inaan arko aan waqti la qaato أنا وقت اللي خادن أكون خندل إن شاء الله ضل. وحرجينا إنه هالمساحة كلها تمدون دوح بدمالا. إن شاء الله إن شاء الله سأسكت طاي. وجدي مقرقة أطاي. ولا سيا. هذه كدبيات مساري سنتيم شرما. Sharma Boy ayaa dhawaan wadanka Mareykanka ku qaban doona show qiimo badan oo ay ka soo qayb gali doonaan dad badan. Sidoo kalena showga waxa qayb ka noqon doona qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Mareykanka. Waxa badi dhacday in fanaaniin magac leh inay tagaan wadamo kale balse iyagoo isla weyn muujinaya aysan qiimeyn fanaaniinta kale ee masraxa fanka la saaran. Taasna waxay keentaa in fanaaniin badan aysan heshiis ahayn ama saaxiibtinimadooda ay noqoto mid kala go'day. Sidoo kalena uu jiro khilaaf hoosaad u dhaxeeya. Fadlan mar waliba ku xirnow channelka Sharmaarka Media kana mid noqo kumanaanka ku xiran channelkan.